معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا iyo 4 bilood wuxuuna magaalada ka degan yahay gees masruufna kuma haysato wax kalena kuma haysatee ma ka furmayaa nin kale ma guursan karaa qaadiga ha u tagto isaga xukumayay yani masaa'isha badhna waxa la yiraahdaa waa qadaa badhna waa masaa'il fataawiya fataawidu waa mas'ala caadi oo qofka la weydiinayo ka sheegayo qadaagu laakiin waa case laba qof ka dhaxeeya qofku been buu sheegi karaa sidii wuxuu sheegay si aan ahayn bay u dhici kartaa ka kale si kale wuxuu sheegaya qadaaga marka la xukumayo intay gabadh timaado war sheegto ama nin yimaado war sheega lama xukumo ee ka kalena waa loo yeedhaa oo waa la dhageystaa haddii kale maxkamadda waqti siinaysa inuu waqtiga inta leegu ku yimaado oo uu ka soo jawaabo warrantka la siiyay haddii marka uu isagu chanceskiisa lumiyo ayuu qaadigu xaq u leeyahay inuu go'aan gaadho idan maaha mas'ala fatwa u baahan ee wadaad dambana ha weydiinin qaadi u tag wax xukumi karo islaamiya isaga idin kala xukumaya marka lacagta responsorka lagu kala gato ma qaadan karaa sponsorka ma aqaanay weydii dadka yaqaana garanaya qaar shabaabka ka mid ah ayaa waxay gaalaysiiyaan nimanka qabqablayaasha shirka ku jira fardi bay u gaalaysiiyaan iyagoo u soo daliishanaya aayaadkii quraanka ahaa ee qofkan kitaabka Ilaahay isku xukumin waa gaal iyo faasiq iyagoo aayaadka daliishanaya anu qaadimay dadku haday shahaataan si fudud diinta looga ma saari karo yani dhulmi iyo macaasi waa jiraan laga yaabaa inuu dadlaayay inuu wax badan qarribay inuu wax sameeyay laakiin inaad xadka ka wada saartaa waa mas'alo u baahan tabiin tira badan wax badan in la cadeeyo sadaradeed wax badan oo adiga kaaga xidhan ma jiraan hebel magaal baa inaad raadacayso iyo gaal maaha hebel haddaad dan ka leedahay u tago diinta u sheego wax u sharaxo bal eeg qofku inuu gaal noqdo iyo inaanu gaal noqon mawaanic baa jirta jahla kamida waxa laga yaabaa adigu aayadkaad u daliishanaysaa mas'aladan inaanu garanaynba jahli inuu kaga sugan yahay waxa laga yaabaa mas'aladu inay macluum min diin bi daruurata aanay jaahilnimadeeda loo cudur daarin marka wax badan baa ku jira sadaradeed Soomaali waa isla Soomaaliya waxba si kala saarsaarine cidii diinta u sheegi karto u sheeg qaadinimadana waxba idin tarbiyeed hadaan idin waa gaal maxay kordhaya iyadan idana waa muslim toona wax badan waxaan waxba idin ka macna ahaynuun ina weydiisaan hebel caynka suude magaal baa hebel caynka suude ma bidcoola waxa ka roon in ay idinku diinteena barataan wax idin ka faacayna qaadataan wallahu a'lam su'aashan waxay leedahay qof baa lacag ka dhuntay lacagtii baan qofkii siiyay waxbuu i siiyay ajarkaygii niyadaydii wax ma ka nusqaaminaysaa إن شاء الله وحي قف مسلم عن طيب قلب وكوسية وحبا دي غير مايا بلن بان قف لا غلي او ii gooyay dambi maleeya waa gabadh baa ballan ila gashay buu yiri yani guur buu ka hadlayaa marka dambi maleeda حاد سمينا طب قلت dambi maleeda يعني دي markaa muxuu sameynaysaa waxa jira wax culimadu ay yiraahdaan dayaana iyo wax qadaa la yiraahdo amaasha qaarkood qofkii Ilaahay bay u dhaxeeyeen subhanahu wa ta'ala ciqaab male kale amaasha qaarkoodna ciqaab dunawi oo laga ratibo baa jira qofku ballan buu galay ballankii buu ka baxay ballanka horta in la buriyaa ma fiicna shariica وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا بلنك أوفية با إلهي سبحانه وتعالى قفك هدو كلاب الله مما لازم با إنه أوفيه مسيوحة كل لازمة وإنه كوش يقاوكو إلى دورني وأنه بلنك إني عين كاسها إلى ما قروح بدني وان كان نغضي إذا لفتدوا مسألة كلا فقه يسوي دين مركع على كل حال مرة دي أديك لقاتك اسكع فيهم السلام عليكم شيخ سيدابان كهلا إخلاص بيري
qofkan warqadda soo qora wuxuu ku helayaa qofku kow kalimatu likhlaas laa ilaaha ila allah markaad leedahay wahiya kalimatu likhlaas waa ilaahay keligii baan caabudayaa waanan cidna ugu shirik yeelin yacni acmaasheedoo dhan ilaahay baan ula qasdinayaa oo cid kale waxba kaga dooni maayo taa macnaheed waxa weeyaan camal kasta oo camal ukhrawiya ah janno lagu raadiyo naarna lagaga baxsado ilaahay dartii u samee shaydaanka iyo naftuna way kugu soo noqnoqonayaanoo kaa tegi maayaane waxaad u baahan tahay maxay taftiish joogto ah inaad si joogto ah isu baadhid waxa koowaade qofka muslimku adeegsadaana waa ilaahay baryadiisa inaad ilaahay si fiican u baridid inuu acmaashaada ka dhigo maxay khaalisatan liwajhi dabeetana aad raacdo dariiqii nabigu jiidayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan waxaan rajaynaya in ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaaska ku siin doono tanna waxay leeyahay fadlan ma soo geli karaa nin gaal ah masaajidka alleh subxaanahu wa tacaala waa masale fiqiya oo culimmada fiqigii aaraa kala gedisan ay leedahay maya caan baa lagu qaadaya aayaadkii alle uu ku tilmaamayay inaan masaajidka u soo dhowaanin wax gaali bise waxa aayaadkaasi ay ku kooban yihiin oo qura maxay xaramkii maka saxiixa waxaa ku sugan axaadiis saxiixa inuu nebigu masaajidka ku xidhay niman gaala ah yacni thumaama ninkii la odhan jiray reer bani xunayfa isagoo gaala cimro tegaya cimrada kusii socday isagoo dhexda marayay muslimiintu soo qabteen intuu nebigu xidhay ayuu wuxuu ku xidhay saariya tiirarkii masaajidka tiir ka mida baa lagu xidhay halkaasuu ku xidhnaan jiray 3 maalmood buu ku xidhnaa markuu nebigu soo maro wuxuu odhan jiray war bal iska warran thumaamo markaa wuxuu ahaa oday qabiil dhan hogaamiye u ah oo laga dambeeyo wuxuu odhan jiray markuu nebigu ku yidhaahdo iska warran in taqtul daa dami haddaad disho nin dhiigle baad dishay haddaad sii daysana nin abaalgudi karaad sii daysuu odhan jiray dabeetana nebigu iska dhaafaa maalin dambu kusoo noqday wuxuu ku yidhi war bal warran thumaama haddaad idisha buu yidhahaa nin dhiiglaad dishay haddaad sii daysana nin abaalgudi karaad sii daysay waa iskaga tegeen wuu kusoo noqday war bal thumaama warran buu ku yidhi intiibuu ku celiyay maalintii dambu thumaama wuxuu yidhi waan islaamayaa waa laga furay tiirkii wuu soo maydhay wuu islaamay dabeetana wuu iskaga tegey cimradaydii maxaan ka yeelaa buu yidhi iska dhammaystaa la yidhi wuu iska baxay wuu iska soo cimro tegey waa kii ballan qaaday inuu abaal gudi doono quraysh buu u yimi aduu quraysh waa la ismaagay wuxuu ballan ku qaaday nebi maxamed oo idin fasaxa mooyaane inaan midho dambe laydin keeni doonin beereley bay ahaayeen dee wuu raashinka soo gura marka inaan reer maka raashin dambe aanan ka iibin doonin oo xaggooda la keeni doonin inaa fasax ka soo heshaan nebi maxamed mooyaane taasuu ugu abaalguday waxaan uga socdaa xadiidku saxiixu muslim ku yaalla insha allah inuu tilmaamayo in lagu dhex xidhay masaajidka maxay nin kaafira calaa kulli xaal masaladu waa masale fiqiya culamada fiqiguna aaraa kala gedisan bay ka tilmaamaan waxaan odhan lahaa un culamadiina idiin jooga masaajidda ka mas-uulkaa weydiiya oo hadduu sheeku ku yidhahdo lama soo gelin karo intaha alamr ha ku qabsanin oo ha odhanin gaalka masaajidka waa keenayna wallahu aclam wuxuu leeyahay shiikhan oo macallin baan ahay qur-aanka dhiga ajuuraanan ka qaataa arrintaa sharcigu muxuu ka qabaa in sha allahu tacaala waa mas'ala culammadu in badan ay ka hadlaan laakiin haddii aanay jirin meel kaloo dakhli kaa soo galo isla markaana uu dayacmayo qur-aanka iyo cid dhigta aan la helaynin wixii aad ku qaadato biduuni ishraaf adigoo aan hunguri badani ku haynin ama aan odhan haddaan intaan laysiinin waxba dhigi maayo in sha allahu inaan waxba kaa raacin baan rajaynaya